tartankoodu ma dhammaan doono ilaa mid ka mida uu ka baxo kubadda cagta oo saadaashu xitaa waxa ay tahay in ay xitaa isla gaari doonaan xilliga maskaxda laga ciyaaro ee hogaaminta kooxaha sida macallinnimo. taasina waxaa loo leeyahay inay yihiin kuwa tartankoodu uu soo socday 13 sano ee lasoo dhaafay, waana xidigaha kale ah Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo. waxa ay dunida kubadda cagta ku leeyihiin miisaan weyn, tartankoodana ma ahan mid istaagi doona xilliyada soo socda, waxaana la isku qiimeeyaa mar waliba awood ahaan iyo rikoor oo xidig ka mid ah labadan xidig uu sameeyey, kan kalena uu awoodi waayey inuu sameeyo. balse aan kula wadaagno 5 rikoor oo uu Lionel Messi sameeyey, isla markaana aysan macquul u ahayn in uu gaaro inta uu nool yahay Cristiano Ronaldo. tan koobaad, goolasha sanad gudihii la dhaliyo. waxa uu noqday sanadii 2012 mid u hoggaansan Lionel Messi oo uu sida uu doono u burburiyay goolhayaasha ugu caansan ee kubadda cagta, isagoona ansixiyay 91 gool intii u dhaxaysay bilaha June iyo September, kadib 69 kulan oo uu ciyaaray dhammaan tartamada oo dhan. waaw, macquul gal maahan, balse kani waa mid riyo kasta oo kubadda cagta ah lugihiisa ku rumayn kara, waxaana uu ciidda ka hoos mariyay rikoorkii cajuuska ahaa ee uu kol hore sameeyey dhaliyihii reer Germany ee Gerhard Müller, kaasoo 85 gool xilli dhaliyay waayihiisa ciyaareed. balse Cristiano Ronaldo waa mid weli sugaya in maalinun uu gaaro rikoorkaasi. dabcan qiimay da'da kadibna adiguba ka jawaab hadda, malaha eber ayaaba kuu soo baxaysa. in la dhaliyo 60 gool iyo wax ka badan 2 xilli ciyaareed oo isku xigta. Messi iyo Ronaldo waa 2 xidig oo la tilmaamo haddii xilligan laga hadlayo goolal badan oo hal xilli ciyaareed la dhaliyo, balse marka xogtan la eego Messi waa mid ka saameyn badan ninka reer Portugal. Messi waa xidiga kaliya ee taariikhda 2 xilli ciyaareed oo isku xigta dhaliyay 60 gool iyo wax ka badan, waxaana diiwaanka lagu hayaa in xilli ciyaareedkii 2012-2013 uu ansixiyay 73 gool, sidoo kale 61 gool fasal ciyaareedkii xigay. Cristiano Ronaldo waxa uu dhaliyay 2 sano oo ka mid ah waayihiisa ciyaareed goolal intaasi gaaraya, balse ma ahan 2 xilli ciyaareed oo isku xigta. Cristiano Ronaldo ayaa marqaati u haysta isagana in uu dhaliyay xilli ciyaareedkii 2011-2012 goolal gaaraya 60 gool, sidoo kale 61 gool oo kale xilli ciyaareedkii 2014-2015, balse ma ahan 2 xilli ciyaareed oo isku xigta. 3. tirada goolasha la caawiyo kulanka ugu miisaanka culus qaaradda Yurub ee El Clasico. inkastoo Leo uu yahay kan ugu goolasha badan kulankaasi, haddana waa kan ugu caawinta badan. Messi El Clasico ee u dhaxeeya Real Madrid iyo Barca uu ka dhaliyay 26 gool, halka CR7 uu diiwaanka dhanka goolasha uu ka haysto kaliya 18 gool, iyadoo xisaabta lagu darayo in Messi uu horyaalkaasi kaga soo horeeyay Cristiano. balse dadka qaar ayaan isku howlin in ay balmar kale ku kala saaraan xidigahan dhanka caawinta. waxaad dareemaysaa inuu jiro farqi weyn, maadaama CR7 uu kaliya sameeyay hal caawin, halka saaxirka kubadda cagta ee ka tirsan kooxda reer Catalan Lionel Messi uu jaabka sare ku wato warqad ay ugu qoran tahay inta baas ee uu wadnaha ku jiray jamaahiirta Los Blancos, kuwaasoo goolo loo bedelay, waana 14 jeer. 4. in lagu guuleysto 4 jeer oo isku xigta abaalmarinta xidiga adduunka. Messi isaga waxa uu gacanta ku dhigay kubadda dahabka markii ugu horeysay xirfadiisa sanadii 2009 kadib 2 sano oo uu tartamo ahaa. waxa uu kadib burburiyay wax kasta, isagoo kubadda cagta ka yeelay mid u hoggaansan xilli uu noqday kan kubadda cagta macallinka waa ka bilow 2009, 2010, 2011 ilaa 2012. waaw, cajiib! kani waxa uu ka yimid duni kale, saaxir awooda in dhab waliba uu dheeldheel ka dhigo,
mar walbana awooda in uu garoomada kubadda cagta ku dhex sameeyo jiliin in la keedsado u qalma. 5 in 50 gool laga dhaliyo hal xilli ciyaareed horyaalka La Liigaha. dabcan waxa uu sanadii 2012 ahaa mid uu awooday rumeynta riyo walba maadaama uu ahaa sanadkii diiwaanka loo geliyay goolasha ugu badan ee sanadka. sidoo kale kan horyaalka Spain Leo waxa uu shoog ku riday difaac walba oo ka hor yimid mana uusan dhaafin gool haye xitaa qadka dhexe. waxa uu ciqaabay sida dambiilayaal galay qalad aan cafis lahayn waxaana uu dhexda kaga jiray kibaartii Spain ee Xavi, Sergio Busquets iyo Engineer Iniesta. waxaana uu Leo Messi ansixiyay sanadkaasi 50 gool kadib 37 kulan ee uu saftay kooxdiisa horyaalka La Liga Primera Divisione tii oo ay jirto in isku celcelis ahaan ay gaartay 1.37 goolal kulan walba. Cristiano ayaa isaguna isku dayay inuu jabiyo kala ciyaareedkii 2014-2015 goolal gaaray ilaa 48 gool ayuu ansixiyay kadib 35 kulan ee uu ciyaaray kooxda boqortooyada Spain ee Los Blancos. Leo waa mid weli gacanta ku haysta 5 rikoor oo uu qaas kaga yahay dhammaan xidigaha koonkan saaran ee kubadda cagta kula tartama iyo kuwii ka horeeyay ee aan hirgelin. waxa uu shakhsiyan ka qabsaday kubadda cagta inkastoo uu ku ceebeysan yahay waajibaadka xulkiisa oo uusan koob weyn u qaadin. Messi ayaana aaminsan inuu haysto 5 rikoor uu kaga sareeyo CR7 oo ay muddo badan kubadda cagta ku tartamayaan oo la isleeyahay ma gaari doono inta noloshiisa ka dhiman. adiga ahaan ma jira mid ka mid ah rikoorradan ee uu Messi haysto mid ka mid ah oo uu Cristiano Ronaldo jabin karo.